بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay caawa inaynu dalkan Ireland soo dhaweeyno magaalada caasimadda ee Dublin waraaga weyn ee Soomaaliyeed oo runtii marka soo qoraaladiisa iyo buugta uu qoray iyo waqtiga uu geliyay runtii aad iyo aad u jeclaysanayso oo anigu aan ka akhriyay buug ka mid ah halkaan oo ka wanaagsan marka dhageysanaya runtii caawa Ireland jooga ama meel kale jooga waxay helaan saacadaha maanta fursad u haystaan أنا ما كان فرصة هذا وهلا هنا نروح إنه على مسألة هذا قرارة وحول شقة وجوه سو حل وينك هاي فكرة هالشيء وأمد حسوا وين يروح أي هذا نوع أوصي راعي إن أنا يبدي إلى هاي السيء يا قراني ماذا أنا مرة وكارين ولا لو يروح إلى قرارة ومشي هذا القايلي كل ما تهدي وهان لها من قراءة أو ضمن يبهان لها ما أنت مليونير من ولا أو ما أنت قرأت كسل يبسلها لكن بعد عدد حوالينك وحقنا وينك هنا نروح يبسلنا وين قرأ أخذ كسبرنا وإلهي أيد يقول سقران كوسود شيء واحد يقرأ فقلبات كمان تشوفتنا سيستم يقول لقنا وإقرأ سيستم استوى خيسة وحن كستمر كسر على بعض تعالى مرة واحد قدر معيو وحن كوسود وينيا محمد باشي حاجي حسن إنه نوفرو بوكتي سي أو عاو بصبر ديك دونو لكن أنا عادي أنا مسيحي هذيك أصلا عادي أنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنت أنا مواكب ونبغي يرجعوا دونو أنا ممكن مركز هواي Ireland, Dublin, soo dhaweyntooda aad iyo aad ayaan uga mahadnaqaynaa sida milgaha iyo sharafta leh ee ay noo soo dhaweeyeen ilaa maanta saaka subaxnimadii intaan joognay midna sida oo naqaada iyo mid نسول ويو حفلة يا باشا انتبه أنا كرافلا نيبا نكوها إن يا فرحات سوريا وياي ومحيبا الليلو وحل الواحد احترام ويلك سوريا كلمة واحترام ومدنا سيدي ذا وحي يسوون نقطة أي استرينتها احترامك iyo isqadarinta iyo isqiimaynta intiba waa nasiiseen caaqil aadan axmed nuur oo halkan lagu sii sagootiyey caaqil xil culusna loo magacaabay waanu u ducaynaynaa Suudaan guud وعاقل جودو أيرلانا وعاقل جودو سوماليلانا وعاقل جودو هرتوديرا هذه تلاقين كهاي أقوم السوماليلان فديدين نشوفه كهايلا ومدو كهايلا أجا صوب لاو شرماركة لان محمود أحمد علي إلا بنسي إنجليز كرجلي هو ها حاج موسى جري إلا أساسا كي هون يهرمود كي بعد هو يدخل كرن ما يعمل أنتوا ده براني موسى جري هرمود وهتراضى لها يو أباب إذا كي تراوي الشيء حولي هي الجيلة هاي بقولالك ها كلهم كونها si loo soo qaado buu ingiriiska kula taliyay in beelihii ku ologol ahaa dhulkii jirta daraawiishtu ka socotay oo diriya daarood balaha furmuudna ay ka ahaayeen dhulbahante habar yunis iyo habar jeclo in geela dhanaane laga soo qaado oo la qabto oo aanu galban oo faafan iyo meelo shisho aanu fogaanin xaaji waraabe محمد حنان أيها كاها كروين كاها
taariikhuu lahaa gabayuu lahaa mahmahayuu lahaa waxaasoo dhan waxaa ii geenayo oo aan usoo xusayaa yacni waxaan doonayaan ka tibaax bixiyo dadkeennu qabaayil baynu ahayno qaabkii iyo habraacii nolosheennu ku salaysnaabaa ka ahaayoo kolkii dambe dhinaca aqoonta iyo nolosha casriga ah loo soo gudbaynay aadan halkanuu maanta saldanadeeda rugaga dhigayo jilbaha dhigayo isaga oo ku abtirsanaya oo saldanadii ka mid ahaa oo caaqiladii ka mid ahaa oo afar caaqil tirsanaya ayaa haddana waxaa barbar socday oo kaloo jiray xadaaraynta casriyeynta nolosha maamulka haybta siyaasadeed iyo habraaca dawladeed iyo haykalka ummadeed dadkii abuurayay ee waday ka midna dhalinayay badi hormuud bay ahaayeen door muhiimahoo wacan baa ka muuqda maantana xilli adag baa lagu jiraayo ilma rogasho ayaynu ku jiraayo casrigu waa isbedelayo oo caaqilkii iyo suldaankii sixir bararka ku dhacay baynu ogu markii la waayey suldaan xula markii la waayey caaqil xula waxaa soo baxay nin iscaleema saara isagu oon cidi shaar aanu lahayn gashada tina waxay dhashay aragti lunta aqoon ablowda iyo isku murug fara badan inta qurahe lagu arbeebi qaba waa inta ay suldaanada iyo caaqilada xulka ahi ay gacanta wax ku sii hayaan caaqilaa jire iyo suldaano xula oon iscaleema saarin dee maalba waxa soo yeedhay waxa lagu hadlay iyo caaqilku ama suldaanku wuxuu ahaan jiray nin saxiigta ereygiisa adinkiisa afkiisa yacni ishiisa nin wax badan xeeriyo oo aan dhacdhac lahayn oo dadka ku dhacdhac lahayn oo qaranimada ilaaliya oo dadka ilaaliya oo reeraha isku ilaaliya oo dadka isku ahaan jiray maantana dee waddankeeni waxaa ka jira waynu la soconaayo caaqil aadan waxaynu marti uga nahay oo aynu ku garab joognaa in la badbaadiyo koofiyadii doorkii cuqaasha ee shariifka ahaa ee wacnaa ee reeraha iyo iskuwadkooda iyo dhaqanka intaas baan ilaahayna kuu fududayaanu leenahay laakiin waa in wax laga bartaayo la saxaa wixii naga qaldan waxaan aada ugu mahadnaqayaa safiirkeena safiirka Ireland u fadhiya Somaliland ama wakiilka Daawud nimanka madaxda ka ah xisaabta wadani iyo kulmiye iyo jooga goobta ganacsatada halkan joogteeda habsiin iyo xubnaha kale muhiimka ah ee jaaliyadda kamid ah halkan jooga marar badanba waan idinka mahadnaqaynaa soo dhaweynta halkan waxaan ku hayaa laba guud runtii kaftana hayga ahaatee dadkeenu waxaad moodaa in wax la yaro waaweyneyn badan oo aan loo baahnayn runtii abwaankii weynaa qoraagii weynaa haddii abahay iyo waxaad arkaysa waxay ku odhanayaan abwaanka da'da yar ee caanka ah ee weyn war ismaba raacdo halu fiirsada waa abwaan da'yar waa caan waa qoraa da'yar waa caan isma raaci karto caannimo iyo da'weyn abwaan ama qoraa eeg maanta ana aqoon-yahan waxyaabaha aynu nuxurkii ka qaadnay aqoon-yahankeennu waa farakutiris haddaynu soomaaliba nahay magaca soomaaliba waa farakutiris abwaankeennu waa farakutiris waa la yaqaanaa dadka la siiyo mustawaha qoraaga ee dee gaasa baxay waa farakutiris waa la yaqaanaa anagu arday baan nahay intaan ugu weynahay iyo inta iga sii waa arday
waxbaanu baranaa taariikhaanu baranaa afkaanu baranaa noloshaanu baranaa weli waxaanu ku jiraa kaalintii welina lama bilkeedin markaa weynaantaasi waa nagu dheeraad runtii haddii aqoon ay tahay iyo hadday qoraal tahay iyo hadday waayaranimo tahayba waa uun dadaal kullayna dadkunbaa dee muddo kadib qiimayn doono oo markay waxaasi wax noqdaan ay yeeshaan dee mustawi ay noqon doontaan laakiin waa isku day xaaji aadan axmed xasan afqallooc ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyee buuggiisa halaan tabayey oo ku saabsan baa taariikheedkii iyo gabayadiisii waa buugga aan u jeclahay buugaagteeda too waayo anugu 3 buug baan qoray imika wax buugaaga marka laga reebo qoraalada caadiga ah ee maqaalada ah ee kooban iyo wixii qabya ah yani imika gacanta ku hayo labadaa buug iyo buug laha guri waa haween oo caawa halkan ka maqan oo ka hadlaya kartida iyo kismada haweenka Soomaalida waxay afka yiraahdaan iyo waxay gacan ka qabtaan markaa buuggan jacaylkiisa waxaa igu biiriyey wuxuu ahaa buuggii ugu dhibta badnaa sababta ugu dhibta badnaana anigu xaaji axmed xasan lama kulmin sugaantiisuna meel kuma urursanayn afka ay ku qoran tahayna ma sahlanayn dhibaato badan baan xilligaan qorayayaan kala kulmay markii uu soo baxayna sidii ilmo yaroo curada ayaa jacaylkiisu igu biiray nin culus oo cimrigiisu aad u dheeraa ilaahay cimri dheer iyo caafimaad iyo caqli badnaan buu isku siiyey wuxuu dhashay 1871 waxay goobta isku soo gaareen oo ay wada kaceen rag waaweynaa oo Soomaaliyahoo kaalin qaaday oo noloshoodu iyo magacoodu hadda yeeshay raggii lalahaa gobaysanay dhasheen 6 sano kala weynayeen waa Sayid Maxamed Cabdilla Xasan sayidkii daraawiish horkacay ee qabyaaga ahaa ee halgamaaga ahaa qaabkii uu u halgamay iyo ujeedooyinkiisu way kala durugsanaayeen waa la isku halkaas la seejiyaa isagana markaa lagu gefaayo ama la buunbuuniyaa ama la hakradaa ujeedooyin sar u lahaayo macaan oo qiimo leh oo halgala oo ujeeddo ah oo qarannimo iyo ummadnimo xilligaa joogay hankeeda ah laakiin dariiqii uu maray baad moodaa inuu xoogaa u khaladaad lahaa taasaa keenta dhibaato ninkaa odayga Sayid Maxamed Cabdilla Xasan daraawiish abaabulay baa ka mid ahaa ragga ay xilliga ahaayeen 3 nin ee sidii gubaa ka qayb qaatay haddii bahay mayo salaan carabay qamaan bulxan iyo cali dhuux ayay soo gaareen waxay soo gaareen Faarax Nuur qabyaagii caanka ahaa isaguna reer Hargeysa waxay soo gaareen xaaji Faarax Umar sanad wada dhasheen ba 1871 ragga kaalinta galay uu la ayni ahaa oo la waqti ahaa hadimooyin badan saymayaal badan ayaa isagoo yar soo maray magaca afqallooc wuxuu kula baxaya isagoo 7 jir isagoo wax la 4 jir oo xarshowga meesha la yiraahdo qalbeedka bariga Ceelgaabo ninkii garanaya uu garanaya halkaa reerkuu yaala ayaa libaax qaadanaya oo ruqsanaya oo intuu afka qowlada gashado la tegayaayo reerkii iyo ooshi kala baxaya ilaahay baa wax ka waday markuu tahan sitay libaaxii ayuu meel kayna oo cidla intuu dhigo kaga dhaqaaqaya habeenkii buu halkii oolaya uu dhiig baxaya subaxdii ayaa inan yaroo ari oo soo koofisay ay kayntii imanaysaa deedna arigii baa ka taaganaya kayntii oo didayo oo kayntii dib uga baqaya deedna inantii arigii ka horu markobay eegaysaa kayntii waxa ku jira bahalbaa deedna waxay arkaysaa ilmaha yar
maydka aayada markaa mayd u aragtay dhiiggiis dhiig baxay dhiiggu jirkiisii iyo ciiddu dhiig u dhaxeeyo deedna way ku dhawaanaysaa dhegtay saaraysaa wadnihiisa waxay arkaysaa inuu qiiq leeyahay uu leeyahay way qayla dhaaminaysaa way qaadaysaa waa loo soo guurayaa waa la bakti afuufayaa waa la baaranayaa wuu ka kacayaa wuu noolaanayaa subax waxaa la ogaanayaa markaa inuu ahaa inankii yaraa xalay ina axmed xasan ee bahalku qaaday libaaxu qaaday inuu yahay baa la ogaanayaa reerkoodii baa loo geeyay 8 sano kadib على أفر سنة كده يسوي استشراء أيها كيمها إحنا حيرها كوسم يسوي وحبت كسر عارية الله وين يدنا أري ولد شو بيو الله يبو فمايا بدي مسلم كعيا يدنا ويلد تيجي وقعدنا يسار ولا ده معي سالت شعيرنا يسار waxay la tagaysaa boolka badda ugu shisheeyay aan leebiyoon laba caalamaad u saaxanaya loo dhigaa oo baddu la sabaynaysa isagoo aan dhinacna kaga jirin waa 8 jir ayaa niman kalluumaysanaya oo ka yimi Suuriina oo ka yimi Masqat باركي المهير الله كله صفينا يو ويقامنا يا ويبدبادين يا كأننا ويكحيسنا يا رو ويلت دوني ده وحكي شغلين يجمعون إريتري يدنا كله